waxay ahayd kooxdii ugu khatar badnayd ee abad soo martay islaamka. kooxdaasoo beegsan jirtay madaxda, wasiirada, culimada, waxgaradka, muftida iyo boqorada. kooxdaasoo wax naxariista aan lagu ogeyn, waxayna ku caanbixeen dhagaraha loo maleego madaxda muslimiinta. haddaba waa iyo kooxdan ka yaabisay madaxdii muslimiinta. waa kooxda la dhaho إنهم طائفة الحشاشين. xashaashiin ama xashaashiiniyiin. waa koox ka mid a kooxaha shiicada, gaar ahaanna madhabka ismaaciiliyada haysta. kooxdan waxaa aasaasaheeda oo u ahaa nin la oran jiray xasanu sabaax, waana ninkii buddhigga u ahaa kooxdan xashaashiyiinta ah. assalaamu calaykum, magacaygu waa cabdiraxmaan jaarig. noo dhaha subscribe iyo like, taasuna waxay nagu dhiirigelinaysaa inaannu muuqaaladan noocan oo kale ah soo badinno. xasanu sabaax waxa uu dhashay sannadu markay ahayd 430 hijriga, waafaqsan 127 miilaadiga, magaalo la dhaho qumma ee ku taala dalka Iiraan. waxaanuu ku soo barbaaray madhabka shiicada ee raafidada. kadib markii uu jiray xasanu sabaax 17 sano ayuu iskaga baxay madhabka raafidada, waxaana uu qaatay madhabka ismaaciiliyada. ismaaciiliyadu waa koox diimeed shiica ah, waana kuwa ugu khatarta badan, waxayna ku abtirsadaan ibnu jacfar as-saadiq. jacfar as-saadiq waa imaamkooda lixaad shiicada, waasay sheeganayaan. waxaana uu soo baxay xasanu sabaax aasaasihii xashaashiyiinta xilliga ay caalamka ka talinayeen dowladihii kale ahaa cabaasiyiinta iyo salaajiqada. cabaasiyiinta oo ka talinaysay ciraaq iyo salaajiqada oo ka talinaysay Iiraan. haddaynu fiirino dhinaca iyo Afrika, gaar ahaana Masar, waxaa ka talinayay koox ka mid a kooxaha shiicadana ku abtirsada Faadumo bintu Rasuul, ilaahay raalli ah ka ahaadee, waxaana la oran jiray Faadumiyiin. imaamu dahabi kitaabkiisa siirul aclaamka wuxuu ku sheegay in Faadumiyiintu wax isir ah ayna ku lahayn Faadumo bintu Rasuul, ilaahay ka raalli ahaadee, ayna ku been abuuranayaan. waxayna culimmada ayna u yaqaanin cubaydiyiin. aasaasaheedana waxaa la oran jiray cubaydillaah ibnu maymuun al-qadaax. cubaydiyiinna waxaa loogu bixiyey aasaasaheeda ayaa waxaa la oran jiray cubaydillaah ibnu maymuun al-qadaax. xasanu sabaax waxa uu ka tegay dalka Iiraan, waxaana uu aaday dalka Masar. xilligaana waxaa ka talinayay nin la oran jiray mustansir billaah. wuxuuna tegay xasanu sabaax dalka Masar si uu ula kulmo khaliifada cubaydiyiinta ee mustansir. marka uu la kulmay waxay wada galeen bayco. xasanu sabaax ayaa wuxuu weydiiyey mustansir, madaxnimada qofkee ayaa kaaga damaynaya? waxaana uu yidhi mustansir, xilka waxaa iga damaynaya labadeeda wiilkan weyn oo la kala oran jiray nasaar iyo mustacsil. waxaana weynaa nasaar oo ahaa dhaxal sugaha khilaafada cubaydiyiinta. waxaana arrinkaa maqlay nin la oran jiray badrudiin aljamiil oo awood badan ku lahaa dowladda cubaydiyiinta. waxaana uu taageeray mustacsil oo ahaa labada wiilkii yaraa uuna u ahaa abti. waxaana badrudiin uu xabsiga dhigay xasanu sabaax maadaama uu taagay nasaar. sabaax xarigiisii kabacdi badrudiin wuu ka masaafuriyey dalka Masar. marka uu ka soo laabtay Masar, xasanu sabaax wuxuu go'aansaday in uu faafiyo caqiidada ismaaciiliyada. waxaana uu aaday dhulka baadiyaha ah ee fog ee buruleyda ah, kana fog magaalada iyo meeshay culimmada xambaarsan diinta ay joogaan. waxaana uu degay qalcad la dhaho aalamuud. muddo yarna waxa uu aasaasay koox isaga ka amar qaadata, waxaana la oran jiraa kooxda xashaashiyiin. waxayna qabsadeen qalcadihii ku hareeraysnaa oo dhan. shirqooladii xashaashiyiinta ay fuliyeen waxaa ka mid ahaa muftigii weynaa ee magaalada Isfahaan ee dalka Iiraan ee la oran jiray nidaamul maqaali, iyo wasiirkii sanduuqyada ee la oran jiray jaliil al-daystaan. waxayna dowladdii sanduuqyada dagaal ku soo qaaday xasan sabaax iyo kooxdiisii, waxayna ka qabsadeen qalcado badan. waxayna qalcadaha ku dileen xasanu sabaax macalinkiisii. waxaa isweydiin mudan sababta loogu bixiyey xashaashiyiin. waxaana la sheegaa inaa siyaabo badan loogu bixiyey, laakiin innagu waxaynu ka soo qaadanaynaa midda ugu muhiimsan. markay dowladdii salaajiqadu ay saartay godoon ciidamadii xasanu sabaax iyo ciidamadiisii, ayaa dadka qalcadda waxay cuneen caleemaha. intaa kadib xasanu sabaax waxa uu taageero u fidideeyay nasiir ibnu mustansir, sidana horeyba u soo sheegnay, balse wasiirkii badrudiin ahaa ayaa arrinkaa ka war helay. waxaana uu dilay nasiir oo ahaa inankii weynaa ee mustansir. waxaana uu beddelkiisa keenay mustacsil oo ahaa wiilkii
inankii la dilay walaalkii Nasiir. Saynu u ogaano Nasiir iyo Mustacsil maxay ahaayeen. waa laba madhab oo ay kala raacsan yihiin Ismaaciiliyadu, waxaana la kala oran jiray Nasaariin iyo Mustaciliin. Xasan Sabax wuxuu ka mid ahaa Nasaariin oo ah Naasir ibn Mustacsil oo ahaa inankii la dilay, waxaana uu dhintay Xasan Sabax sanadu markay ahayd 518 Hijrida. gadaashiina waxa uu ka tagay madhab aad u ballaaran oo Xasan Sabax ku abtirsada, waxayna ay weerariyeen muddo dhan 200 sano xashaashiyiintu caalamka, iyagoo beegsanayay boqorada iyo dadka bulshada indhaha u ah, ilaa uu ka yimi Holaako oo ahaa amaandulo Tartaara, waxaana uu qabsaday qalcadihii ay ka talinayeen ugu muhiimsanaa ee ayna ka mid ahayd Aalamowd. waxaana uu yiri waa Holaake, xashaashiyiinta waan tirtiray ayaga iyo kutubtoodiiba. waa noo muhiim in aad xagga hoose nagula wadaagtid waxaad ka korsatay muuqaalka xashaashiyiinta. Assalaamu calaykum.